بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور صدق الله العظيم. طبعا آياتها waxay مناسبة ay ku yihiin badda aan dul soconno بتسخير من الله ابن آدم كإله بكرمي جل جلاله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر برق وادركته إلهي سبحانه وتعالى وحوكو حنباري ومركوب كاغا دغاي xoolaha haday noqoto baabuurta haday noqoto bahaladan tareenka haday noqoto barigiina badiina ilaahay wuxuu ku sakhiray doontaas oo min aayaati illaahi aayadaha ilaahay waa weyn bay kamid ilaahay wuxuu kala tilmaamay dadku markay dhibaato ay ku qabsato badda oo ay badda dhex marayaan oo mowj ku kaco iyo hir buuraha la eg oo ay inay arintu halis tahay ay dareemaan ilaahay waxaan ahayn way iloobaan Allah rabbul alamin si ikhlaas la ay u bariyaan ilaahayna ma hoojiyo waa badbaadiya subhanahu wa ta'ala falamma najahum ila albarri faminhum muqtasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur marka tawfiiqda Allah na waafajiyo rabbigan aan jeclaano fi kulli ni'amihi markaan bariga joognay iyo markaan badda joognay iyo meel kastaba waa inaan nicmada ilaahay aanu aragnaa إلهينا كجعلنا سبحانه جل جلاله دائما إنسانه وإنك كجذبته أركتدا السكائي أسباب بني آدم كي وحش كل ركبين ودو جذبته إلى نعمة الله تعالى نعمة إلهي وتمكيني إنسان كأوبري شيء وغفى إذا نعم كيس جل جلاله تاوحى نودر ما شاء الله مناسبة أن سكون ميدو الحمد لله جورك ولدنا سليمان وما أنت هالكن مهركن كدعي ومناسبة بركيسن وي وأرين وناكسن وي وحا أن أنكوانين إن شاء الله تعالى إساق إيو دنيارة ودنبا خاصة إنك دنيارة قرسدا إلهي سبحانه وتعالى دينتي سينتي بدنا جواو إلالي أنت كدما إنو مركاو إلاليو سليمان ودي وحي كلهم بدبا شلي ساده هيد اما ساعده كور ساده هيد يا هدا سدا تاي وا kala duwantihiin hada mas'uuliyad ba ku fuushay aan markii hore ku saarnayn markii hore naftaada baad mas'uul ka ahayd imika naf kala kugu soo biirtay oo mas'uul ka tahay waxaad mas'uul uga noqonaysaa waxa weeye risqigeeda iyo waxay cuntay iyo waxaas ilaahay ba ka kafaala qaaday adigu wixii lagu saaray waajib lagaaga dhigay baad gudanaysaa wa ahamu shay taqwa Allah ina taqwada ilaahay soo kaalmaysataan guri saalihaad ka dhigtaan nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii naagta isqaba haday ka caano habeenkii laba rak'ay tukadaan ay wada tukadaan kutiba min alqanitin qanitin ta lagu qoraa diiwaanka qanitin ta ay almutiiciina oo ilaahay jecel yahay maryam alayha salaam iyo markuu yiri wa kanat min alqanitin قانتين تاس على القدرة ديوان كودة قلان حيكون لين لبرك عيتو كذا صلى ركعتين بس مركز كلجا اسك جوجتو هذا نقول سنين فضلك لو هليش هذا اسك تكتو لكن تاس مهليش دعاء النبي باجرت عليه الصلاة والسلام وهديات حاسك كعيسو يديدو قيام الليل بيه كشبتو أما أدو أديدو بيه كشبتو وهشيس واي إنه كهر مرادي كلا والس دجالها ما قرت لقوه شيء وهاوي مركا والنبي دعاء سيبا الهلية رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها وأرن هشيس وتعاون كي كنت سنيسا
تعاونوا على ماذا؟ maxay ku tacaawunayaan على تقوى الله iyo in arinta tan adduunyadan ay tahay ku meel gaar meesha ay u socdaan oo doonayaan in ay ku waaraan iyagoo waliba isqaba jannada waay adduunyada waa iska macbar waa la gudbaa zawjkii iyo zawjka saalixa ee adduunka wanaagsan ku jooga jannadana way isku qabayaan isagoo wiil aad u qurux badana iyo iyadoo xuriyad ah oo aad jamiilo ah oo xataa haday gabowday ilkii ka dhaceen gabadh yar laga dhigayo qudrati Ilaahi ta'ala adina firka hadaad gabowdi waa lagu soo celinaa dhalinyaro laga dhigay jannada oday iyo waxaas lama ogola agarati marka Allah na waafajiyo khayr dhalinyarada kulligeena dadaalno diinta Ilaahi dacwadana aanu dadaalno tawfiiqdana Allah na waafajiyo